السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرسنال سومالي فانس ملك استوتاني سيكستو مقال كي يدي سو غاريو وأدمن وري محمود فانتاستيك channel كان نغلا سوعتانا وأرسنال اف سي سومالي فانس 1998 We are Arsenal. Where we born? We love Arsenal. Oh yes. We are Arsenal. No mercy. We're Arsenal forever. We are Arsenal. Road to Wembley. We love Arsenal. Oh yes. We are Arsenal. haddaba barnaamijkeena maanta waxaan ku qaadaa dhigi doonaa falanqeyn yar oo ku saabsan kulankii xalay Arsenal ay guusha ka gaartay kooxda Nottingham Forest ee kulankii League Cup ama Carabao Cup la dhaho ama hore loo oran jiray Carling Cup. sidoo kale barnaamijkeena maanta waxa uu qayb ka noqon doonaa in Arsenal 13 sano kadib ay heshay daafici bidix ee ka lumay. sida xalay loo socon Arsenal waxay guul raaxale oo xasuuqa u geysatay kooxda Nottingham Forest oo marti ku ahayd Emirates Stadium kulan xiiso badan oo Arsenal ay soo bandhigtay tayada ay haysato ama tayada ciyaartooyda da'da yar ay haysato. marka aan sida leenahay Arsenal kulankii ugu dambeeyay Arsenal ee horyaalka waxa ay si dirqi uga baysay kooxda Aston Villa sidaan loo wada soconay inkastoo silacaas uu keenay in Arsenal 10 ciyaartooy ay ahayd oo xidig wacsan ka qaatay sida aan la soconay xidiga lagu magacaabo Martinez laakiin se marka la eego tayada Arsenal ee ciyaartooyda da'da yar ee ciyaartooyda da'da waaweyn xalay waxa soo baxday in ciyaartooyda da'da yar ay yihiin kuwa aan la qaban karin. xidiga reer Brazil Gabriel Martinelli oo Arsenal ugu fadhiyay kaliya 8 milyan ayaa xalay tusay inuu yahay weeraryahanka tooska ee mustaqbalka dama Arsenal. waxa uu dhaliyay 2 gool kulankaas waana kulankiisa ugu horeeyay oo uu Arsenal ku soo bilowdo kulan rasmi ah kama hadlayno kulamada saaxiibtinimo ee xagaaga waxaana uu durbo furtay akoonkiisa goolasha. xidigaas waxa uu kamid yahay xidigaha mustaqbalka leh ee Arsenal ee kulankaasi wacdaraha dhigay ama Arsenal ay ku xisaabtamayso. sidoo kale xalay waxa wacdara dhigay Crom Chambers ودافع ميديك وحلك عياري inkastoo markii dambe bidix la geeyay maadaama la saaray Tierney oo lagu bedelay Bellerin waxa uu geysay 3 caawimaad ah buu gacan ka geystay. marka Arsenal waxa ay tustay in da'yar khatar ay haysato oo wax iska celin kara oo mustaqbalka ay ku xisaabtami karto. marka barnaamijkeena maanta waxa aan ku qaada dhigi doonaa in Arsenal ay heshay daafici bidix ee ka lunsanaa muddo. Kieran Tierney xalay waxa uu soo bandhigay qaab ciyaareed cajiib ah isagoo ciyaaraya kaliya ciyaarta uu sadhameysan. hadda niyada kama hay daqiiqadii la bedelay laakiin daqiiqadii 60aad ilaa daqiiqadii 70aad in la bedelay bay ahayd. haddana waxa uu tusay Arsenal in weerarka uu qayb ka yahay waxa uu tusay in difaaca uu qayb ka yahay waxa uu tusay in xidigan uu yahay heer caalami. Arsenal difaac la mid ah waxa ugu dambeysay difaac bidix Ashley Cole daafici reer England ee weynaa ee markii dambe Chelsea ku biiray oo Arsene Wenger William Gallas ku soo bedeshay ayaa Arsenal ugu dameeyay daafacaas. marka Kieran Tierney waxa uu tusay Arsenal inuu yahay xidig aan loo babacdhigi karin. waxa uu ahaa mid ka qayb qaadanaya weerarka waxa uu ahaa mid crosskiisa kubadaha uu soo laaday ay ahayd mid cajiib oo inaba aan caadi ahayn. waxa uu ahaa mid baalkiisa daafaca aad u adkaystay marka uu kubadda soo qaato waxa uu turbo ku weerartagay kooxda Nottingham Forest. marka uu kubadda kooxdiisa ay lumisana waxa uu kan ugu horeeyay ee difaaca taagan. Kieran Tierney sidaan wada ognahay Unai Emery waxa soo qaatay isagoo dhaawaca sidaan la socono Arsenal xidigan waxa ay daba joogtay xagaagii oo dhan waxa ay gudbisay dalab koowaad waa laga soo diiday waxa ay dibsatay dalab labaad waa laga soo diiday waxa ay dibsatay mid saddexaad waa laga soo diiday ilaa maalinta ugu dambeysay suuqa deadline-ka ay Arsenal ogolaatay in xidigan lacagta ay kooxda Celtic ay ku rabta ku bixisay waxaana cadaatay in Unai Emery xidigan sababtu ugu dhaganaa ay ahayd inuu xidig heer caalami yahay. waxa uu ahaa kulankiisa ugu horeeyay mid heer caalami ah. durba taageerayaasha Arsenal ee caalamka Twitterada xalay waxa ay ugu baaqeen Unai Emery in xidigan uu qayb ka noqdo line-up koowaad ee kooxda kulanka Old Trafford Arsenal lagu ciyaarayso horyaalka. Arsenal Old Trafford ku soo baysana waxa ugu dambeysay sida u malanayo 2006 goolkii Emmanuel Adebayo
oo Fabregas daqiiqadii 85aad uu siinayay haddii Arsenal ay ku soo badin weydo Old Trafford Manchester United waa koox weyn waa koox cajiiba waa koox haysta laacibiin waa koox haysta macallin fiican laakiin sanadkan Manchester United waxa u maleysay in xoogaa ay ka lidato haddii Arsenal ay ka faa'iideysan weydo isqabsi la'aanta wali ciyaartooyda Arsenal oo Old Trafford ku soo badin weydo waxa ay mar kale ku tahay ceeb Arsenal ma dhahayo in Arsenal ay ka adag tahay Manchester United laakiin Arsenal ayaa xooga ugu badan la siinaya ama talaalanta ugu badan la siinaya inay kulankaas Old Trafford ku soo gaarto marka taageerayaasha Arsenal waxay ku baaqeen in Unai Emery macalinka Arsenal uu ku soo bilaabo xidigaas daafaca dhexe oo kula soo daafac bidix ee weerarka oo uu bantiga geliyo Saïd Kolasinac waxa uu mid cajiib ah xilli ciyaareedkan laakiin raacashadiisa waa ay fiican tahay laakiin weerarkiisa ma aha mid Arsenal ha qabtiri kara laakiin Arsenal marka uu daafaca midig u taagan yahay Hector Bellerin daafaca bidixna u taagan yahay Kieran Tierney wadnaha dhexena u taagan yihiin Rob Holding oo xalay soo laabashadiisa gool la yimid iyo waliba Mustafi ama David Lewis ama Socrates xidigu rabta u qaato ama David Lewis badhe Arsenal difaaceedu ma isku fadhiya marka Bellerin xal ka soo wartago xaqana uu kaga yimaado xidiga la yiraahdo xidiga Arsenal xalay wacdaraha dhigay Kieran Tierney waa mid cajiib ah marka Arsenal xidigan aad bay ugu faa'iiday aniga fikirkayga inkastoo aan wali wax saadalan badan aan ka dhiban karin haddana sida muuqata kulankiisa ugu horeysay Arsenal waxa uu ahaa mid cajiib ah waxa uu ahaa weerarka qayb ka aha waxa uu ahaa mid difaaca qayb ka aha waxa uu ahaa mid kubadaha Arsenal ee ay khalado soo saxayay waxa uu ahaa mid cajiib ah oo indhaha caalamka ay ku wada riyaaqayeen waxa jira taageerayaal badan oo Arsenal ah oo xalay xidigan kaliya indhaha ku hayay oo raba inay daawadaan waxaana ahay dhamaantood ku wada riyaaqay qab ciyaareedkiisa maxay ahayd sababtii Unai Emery xidigan isagoo dhaawac u soo qaatay maxay ahayd sababtii Arsenal xagaagii oo dhan xidigan u daba joogtay maxay ahayd sababtii Arsenal ay daafac bidix u doon weeday taydiisa xal ay muuqatay kulankiisa ugu horeeyay xal wacdara ayuu dhigay laakiin xidig kulankiisa ugu horeeyay lagu qaabili karo Premier League ayaan sugeynaa Europe League ayaan sugeynaa kulamada kale maxalliga ah ama koobabka kale maxalliga ayaan sugeynaa laakiin Kieran Tierney absolutely waxa uu muuqdaa mid cajiib ah oo aan indhaha loo qaadamayn karin waxaana rajaynaynaa in macallin Unai Emery xidigan uu ku soo bilaabo kulanka Old Trafford si aan Manchester United wacdara ugu dhigna haddii Allah uu wadareedo admin wari maxamed fataasig ayuu ahaa channelka nagala socoteena waa Arsenal Somali Fans channel inta aan barnaamijkan oo kale ku kulmi doono ama falaqeynta xigna waa dhammaan adminada halkan oo idin leh assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala